haddaan midnimada duuduub ku qaadan jirnay waxaan leenahay doorkan maya hadday midnimo unaan lahayn waxaan leenahay doorkan maya waa xisaabtamayna xisaabta u horeeyana waxa koob ka ah 12 senatar waxaad joogtaan anigu ma qabo kolleyde dawlad goboleed ma oran karo oo inagu dawlad goboleed waa ka sareynaa Soomaaliland iyo Soomaaliyaana laakiin haddana maanta xaqiiqada marka la eego waxaad ku dhex jirtaan meeshii laga metelayay muxuu ahaa dawlad goboleedyada ama deegaanada Soomaaliyeed marka qayb loo qaybiyay meeshii laga metelay baad joogtaan marka dardaarankaygu waa laba shay dardaarankaygu waxa weeyaan halkan waxaynu u joognaa sidii gudoomiye Baashi bay yiri midnimo Soomaaliyeed aad bay u tamar darnayd laakiin hadda dawladnimadii dibna way yeelatay dheefna way yeelatay marka waxaad ka shaqaysaan inaad dheefteedana dadkeennii gaadho dibteedana dadkeeda ka celisaan dawladnimadii hadda aan ka mid ahayn deeni raga loo sheegi maayo wixii gaarsiisay dadkeena waa loogi isbaaro ayahay waxaynu u joognaa halkan Soomaali markay isqaybiso dadkaas in metela inaga iyo qolada xukunka haysataana waxaynu ku kala duwanahay iyagu waxba u qabteen inagu waxba ma noqon midnimada dawladnimada aan ka rabno waxaan ka qabanay malaha dawladnimadii hadda way ka Itaal iyo adduun baroon tahay intii hore hadday ka Itaaliya adduun baroon tahay intii hore intiinan iyo inta kale calafu qorey kala ka mid noqon doontaba iyo in kale oo banaanka joogta iyo inta odayaasha ah iyo inta wax garanaysaaba maanta waxaanu u baahanahay inaynu hirgelino dawladnimo Soomaaliyeed oo inagana danteena iyo tii dalkeena ku jirto midnimo aan dadkeena wax yeelin midnimo aan dadkeena dhibaato u geysan midnimo dadka Soomaaliyeed oo dhani raali ku yihiin sidii aan uga shaqeynaa. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.